labadii cisho laga soo gudbay gudaha Hargeysa guddi gaar ah oo xisbiga mucaaradka wadani u xil saaray inay ka soo tala bixiyaan saldhigga military ee la tilmaamay in xukuumadda Somaliland iyo dawladda Imaaraadku ay ka wada hadleen in laga sameeyo magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil ay waxay gunaanadkii maanta soo saareen qodobo wax ku oola oo ay tilmaameen inay yihiin mowqifka rasmiga ee xisbigoodu ka taagan yahay in saldhig military laga sameeyo magaalada Berbera. ogolaanshaha saldhigga military waxa dalka iyo dadkiisaba ugu sugan dhibaatooyinka iyo khasaaraha aan hoos ku soo sheegi doono. kow dariiqa loo maray bixinta saldhigga waxaynu ognahay in aanay dawladda Imaaraadka Carabtu dawladda Somaliland u aqoonsanayn dawlad madax bannaan oo marka heshiiska ay saldhigga ku doonayso aad loo tuunsan yahay inay la soo gashay dawladda Soomaaliya innagana ay naga laaluushayso uun carqaladaynta meel marka heshiiska ayadoo arrintu haystaa tahay waxaa xaqiiqa ah in xukuumadda talada dalkan haysi ay u qalab qaadatay sidii ay golayaasha sharci dejinta uga meelmarin lahayd arrinta saldhigga. xisbiga wadani wuxuu u arkaa kol haddii aynaan qaran ahaan dhinac ka ahayn heshiiska inaan markaa noqon karin mid inaa qabata haba yaraatee. waxaa nasiib darro ah in garoonka diyaaradaha ee Berbera oo ah garoonka ugu dheer Afrika isla markaana ugu ahmiyadda badan geeska Afrika oo inoo goyn lahaa ictiraaf buuxa iyo dhaqaalo buuran wuxuu keeni karaa inaan qayb ka noqono khilaafyada noocyada badan leh ee gobolka bariga Afrika ay ka mid ka yihiin kuwa dawladodana dhaqaale isku haya ka dhaxeeya iyo khilaafyo fariiqooyin diiniyeed oo aynu maanta ka bad qabno iyo dhibaynaan maanta inoo dhoweyn inaan lugaheena ku soo jiidano. xidhiidhadii saaxiibtinimo ee nabadgelyada dhaqaalaha iyo degaan ee inaga dhexeeyay dawladda Itoobiya wuxuu saldhiggaas ku yeelanayaa saameyn taban inagoo aan diyaar u ahayn maanta inaynu xidhiidhada soo jireenka sida hawsha yar u lumino inagoo ah dad walaalaa oo isku dana ah. gabagabadii waxaa xisbiga wadani ugu baaqayaa xukuumadda Somaliland inay ka joogsato meelmarinta heshiiska qarannimada Somaliland lafjabka ku ah oo ah heshiiska saldhigga. laba waxaa xisbiga wadani ugu baaqayaa golayaasha sharci dejinta oo ah golaha wakiilada iyo golaha guurtiga iyo shacab weynaha Somaliland in qadiyadda Somaliland wixii dhaawacaya ay meel uga soo wada jeestaan. saddex waxaa xisbiga wadani dawladda Imaaraadka Carabta halkan ugu caddaynaya inay Somaliland dhibaatooyinka kor ku xusan oo dhan kaga indha qabsan karto. maxamed cabdilaahi rucade xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa warbaahinta u akhriyay dhankiisa waxa isaguna xeeraya kooban ku cabiray saamaynta saldhiggan yeelan karo xuseen axmed caydiid gudoomiyihii guddidaasi 100,000 ee Somaliland laga siinayo ee ay miisaaniyadeedii ku haysato 360 milyan dhibaatooyinka laga warramayna uu inoo leeyahay wax isqabanaya maaha haddaanu dee cid gaara u daraynayn wax si guud ugu daraynaya ma muuqdo halkaa taa intaasaan ayaan ka odhan lahaa weli saldhigba ka dhigin oo garoonkii uu markaa dhameeyey inuu dalka ka baxay halkuu la doonaya muu gaadhin maraykanna baahi uma qabanin uu ku isticmaalaa markeeda horebana ciidan dego oo saldhiggaa dego oo uu military ku urursado umuu samaysane facility inuu markuu u baahdo isticmaala unbay ahayd. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.